إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني، وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين، وبعد. لما والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كأني فتوى معلنة جمعها أنا علماء الدين كصومالي الدين جرني، وحنا لجوجا فضيلة الشيخ دكتور اسمان علي فارح حفظه الله، وأنا سؤالات قصة السلطان برنامجك. شيخنا الفاضل أهلا وسهلا ومرحبا سودو. شيخنا الفاضل سؤال شو قرصن كوديني وحوي قفك بني آدم كرجل دمربا مدوري كلا سنكيسة عرب كيسة دقيسة خدونتا ناسها أنت دين الإسلام كو محيكات لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاجة دمرك إن الدوران لها السنك العربك وحيوها لمدك حيو كلا بحال سيدان سو سعطة قفك دمرك حدي أي دورتو لجهدا أم سنك هذا أي واحد لمدك ويبنانتها الدين هان وحدي لا ياهم مجرا، لكن عربك وحيوها لمدك حدي dhibaato ay ka imaanaydo ma banaana oo caafimaad ahaan ama dhibaato kale ay ka imaanaydo. wixii aysan dhibaato ka imaanin oo dumarku inay isku qurxiyaan ay u arkaan ama dheg ha noqoto ama san ha noqoto way bannaan tahay, wax dhibaatana male. laba shardi kaliya in ay iska fiirido ayaa laga rabaa gabadha. midda koowaad waa in aysan ka dhalanayn wax dhibaato caafimaad ah, waa inaysan ka dhalanayn waxa ay samaynaydo. midda labaadna waa in aysan u samaynayn waxaas kudaysi ay ku daysanaydo dad aan muslimiin ahayn, waa inaysan u samayn. marka haddii intaas ay ka maran tahay, quruxna ay ka helaydo, diin ahaan way bannaan tahay. wax nusuus sharciya oo diidaya hana ma ay jiraan wallahi. haddii uu yahay qof ragga, laakiin ragga sax raggu inay dhagaha durtaan iyo sanka iyo waxa lamidka ah diin ahaan lama ogola. haddii ay ka dhalanaydo tusaale ahaan in dumarkii ay u ekaanayaan oo meesha la joogo dalal waxaa jira laga yaabo hadday jiraan oo kale kaba soo qaad dal raggu dhagaha durtaan wax dhiba male, laakiin haddii meel qofku uu joogo dumarku ay dhagaha durtaan in ninku durtaaho waa xaaraan qadcana. sababta waxaa ka dhalanaya in ninku uu isku ekaysiiyo uu isku shabaho dumarka. arrintaasuna waa arrin la lacnaday oo lacnad lagu riday diin ahaan xaaraan. marka ragga inay dhagaha durtaan ama ay san durtaan oo ay dumarkii u ekaadaan marka meelahaas kale la joogo ma bannaana diin ahaan. laakiin waxaa jiri kara mararka qaarkood caadaadka dalalka qaarkood wax oo adduunka dhan sharci loo deji kara maahan. cilladda arrintan loo reebay oo loo diiday waa isku ekaysiinta ay raggu isku ekaysiinayaan dumarka. laakiin haddii dhaqanka dalku uu si kale yahay oo aysan rag iyo dumar isku ekaaneyn, markaas wax dhiba male. sida cilaanka oo kale, cilaanka tusaalaan raggu inay gacmaha marsadaan. annaga dalkeenna oo kale waa xaaraan, sababtoo ah dumarka gacmaha marsada cilaanka. hadduu nin marsado wuxuu noqonaya nin isku ekaysiinaya dumarkii. laakiin waxaa jira dalal ay dhaqan tahay marka aroosyadu jiraan oo kale in raggu ay gacmaha ama lugaha oo kale cilaansadaan. meel ay dhaqan ka tahay jirta, meeshaas kale xaaraan maahan, sababto ujeedadu ma ahan nin isku ekaysiinaya dumar. marka sida guud haddaan soo duuduubo, dumarka ayaa dhagaha iyo sanka iyo wax lamidka durta. haddii ay ka dhalanaydo in sida dalalka islaamka oo kale in nin uu dhaga durto ama san durto waa xaaraan, sababtoo ah wuxuu isku ekaysiinaa dumarkii. arrintaasuna ma ahan arrin la ogol yahay wallahi.
شيخنا الفاضل قبل أيام سبراني وشكرا سنة وحي ويديسي إن حاصل لي إن كله وحنقول حاصل اللي هي أنا قلنا أنت حاصله مركب ما يغفر ما يحاصل لي هذه منكو تقبل شكرا سنة لو يديو إن حاصل لي إن كله ويرى حاصل لي سيدا حاصل شكفر منه لكن وحكون قنا بيناله أو حكون دعاء بين هي شيء حرام مركب لكن سيدا هويت غفر ما شاء الله شيخنا فاضل ولا يا إيميل كصادر توحد تري مرة قاعد وحن دريما بورن وأحد شغلان إنا وحن قبتان وايو كبعد وحن فرتي فيسبوك والمقعد مقعد هنا كفري مرة وحن كل شخص بيتري ويلش أصلا ما رجع لكن رونانت أنا حاط أيام لا هاي وحن مقرر لكن شو كان سوون بيجته هاي دين تسمعكم حي قبتان الدين هان قبل إنه مقعد كله كفرة يكون كش فيسبوك أو أي إذا من له وحاسة أي رجع كاسة الدين هان وحنا أقول له ما هو waxaan marka kula talinayaa gabadhaas markii ay wax ay qabato ay arki weydo inay ama sport sameeyo ama quraan akhrisato ama ay lugaydo ama ay waxyaabo kale ama gurigeeda ka shaqaysato laakiin aysan isku galin hawlahan aan marnaba la ogoleyn gabadhaas hadii aan weydiino waxa laga yaabi lahaa ninkeeda haddii intaas oo kale uu sameeyo waxa laga yaabi lahaa inay aad u xanaaqi lahayd ninkii inta magac kala samaystay maanta oo Facebook gabadha kula jira hadii iyadoo arki lahayd waxa laga yaabaa inaysan jeclayn laakiin diin ahaan looma ogola gabar inay sidaas ay hadda gabadhu sameeyay oo kale ay sameeyay oo la ما شاء الله شيخنا فاضل نين أنا شو كان سنو فيسبوك ما أودر كرا صور كيجا أنا قلت حجابنا وسيدي عندي بدكم مرأة ما أودر كرا نين أنا شو كان سنو ونشتغلها qof lagu kalsoon yahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa duu qofku yahay inuu sawir loo diro xaraan maahan laakiin waxa lagu la talinayo waxay tahay in aan sawir la isku dirin sawirku xagga ninka marka laga fiiriyo dhibaatooyinka uu la iman karo waxa kamid ah gabadhu hadii tusaale ahaan iyadoo da' ay sawir hore u soo dirto ama makeup inta ismarido ay qof kale ay u ekaato hadhow intana markii la isguursado qofku filayay in qowiyada waxa dhici karta inay dhibaato ka dhalato gabadha la tirkeeda dhibaato ka dhalan karta sawirkeeda hadii dirto guurkii la rajeenayay inuu dhaco waxa dhici karta in lagu kala boodo oo soo hore u sii socon sawirkeedina la haysto dadkii sawirkeeda hayeen waxa dhici karta inay si aan qumanayn u isticmaalaan marka waxa soo dhibaato iyo waxa la midka iyadoo laga gaashaamanayo waxa quman inaan sawir la isku dirin si kale oo labadaas qofood oo guurka iska rabaan si kale isku aqbali karaan ama isku fahmi karaan ila raadiyo ayaa ka haboon oo la ما شاء الله جزاك الله خير جزاك شيخنا الفاضل وحنا مهدلنا الله سبحانه وتعالى وقتك نسيه وحنكرهم مهدلنا فضيلة الشيخ دكتور اسمان علي فارح والسؤالان وجوابي iyo film media oo soo saartay barnaamijkan anigu maxamed ibraahim awad waxaan idinkaga tawfiiqda Allah waxa idin leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعو